Falastiin ma idinka rabto banaanbax run hadii la isku sheego. Yo guys, waan salaamay dhammaantiin meel walba aan ku joogtaan. Waa aniga walaalkiin Aamin Xasan ah. idin leh kusoo dhawaada mar kale iyo YouTube channel-kayga. Haddaad ku cusubtaan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saartid, aadan ka hilmaamin inaad taabatid gambalaalka saad ula socotid muuqaalada soo socda. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo beenta ka socota social media. Social media hadda u fiirso horta dhammaantiisa waa been socota. Social media dhammaantiisa yacni boqolkii 90 waa been socota kaliya. boqolkii 90 maxay tahay? boqolkii 95 dheh waa been socota. waayo horta aan ka hadalno yacni xaaladaha hadda socda ee dadka ee banaanbax u baxayaan oo yacni ay ku taageeraan Falastiin. horta waa shay aad iyo aad u wanaagsan, laakiin hadda si u fiirsisid horta Soomaali aan ka hadalno markii ay banaanbaxayeen maanta waxaan arkay video yacni Soomaaliya laga banaanbaxay oo yacni Falastiin lagu taageerayo. isla muuqaalkaas waxaa ku jiray wiil Soomaaliyeed ama wax u taqaanin jirar Soomaali. waa ka xumaa inaan magac sheego, laakiin waa waxaan rabaa inaan idinka wax idin fahamsiiyo. okay, markaas wiilka Soomaali waa Soomaali, waa Muslim. marka ma ogi yacni borderka la haysto miya ayuu inoo qabto ayuu rabay. waa laga riixay yacni waa la celcelinayay, meesha ayaa laga bixinayay. qofba yacni qofka uu iska sijinay. marka fiiriyay yacni waxa uu banaanbaxaysaa ma ogi Arab ma u daneynaysaa mise Islaam. waayo hadday Arab u daneynayso taas waa gooni, laakiin haddaad dhahdid diinteena Islaamka ayaan u daneynayaa, waayo kaas isku diin ayaad tihiin, isku dhaqan ayaad tihiin. qofka dheer maxaba u qabanaya haddaaba qofkan osaan oo yacni agtaada joogo kula taagan aad yeesisid, ma kula tahay in qof kale wax u taraysid? jawaabtan idinka ayaa idinka raba, aniga ma bixinayo. sidoo kale horta beenta labaad waxay tahay qof walba wuxuu isku soo duwaya ana dami Falastiini. intee been ma isku sheegaa dami Falastiin ma tihid, Falastiin ma tihid. okay, taas dhibaato ma ahan, waa dhexe kartaa, laakiin qof walbo yacni fame ayuu ku raadinaya, magac ayuu ku raadinaya, likes ayuu ku raadinaya, followers ayuu ku raadinaya. sababta aan idin sheegaya waayo Falastiin ma idinka rabto banaanbax run hadii la isku sheego. diid ama yeel, ani runta ayaa idin sheegaya. Falastiin ma idinka baahno banaanbaxyo aad u banaanbaxaysaan. Falastiin waxay u baahan tahay 3 shay haddaad awoodid. midda ugu horeysana waxay tahay xoogaada, yacni xagga ma joogtaa xoogaada ay rabin, laakiin wadanka waa ka dheer tahay, isku meel ma joogtiin, bas xoogaada wax uma tarayo. midda labaad waxay tahay lacag. Falastiin waxay u baahan tahay in la caawiyo. maxaa lagu caawinaya? xoogaada haddaad ku caawi karin lacag ma u diri kartaa. hadday tahay bas isku day in aad caawisid, aad yacni aad dirtid lacagtaas. haddaysan ahayn, haddaadan awoodin, shayga ugu dambeeyo ee kaa baahan yihiin waa duco. waa in aad u duceysaa, wax kale ee kaa baahan yihiin ma lahan. Falastiin uma baahna banaanbaxyo, uma baahna, waayo banaanbaxyo waxay u tarayaan ama waxay u saacideynayaan ma lahan. waaba iska yartahay, haddii jirto xitaa yacni 1% waa iska yartahay, aad iyo aad ayay u yartahay. waayo haddee wax tar lahaayeen waxaa laga baxay wadamo aad iyo aad u fara badan ayaa banaanbaxyo laga baxay. haddee banaanbaxyadaas wax u tar lahaayeen mar hore dhibaatada ka baxi lahaayeen. waayo hadda fiiriya, America waxay dhahday aniga waxaan garab istaagayaa Israel. maxay samaysay? af oo kaliya kama sheegin, darado afay ka hadashay. waxay dhahday anaga waxaan garab taagnaanaa Israel. maxay samaysay? maanta ayaa waxay samaysay lacag ayay yacni hub ay u diyaarisay iyo military ee u dirtay. marka qofka fiiri, haddaad dhahid waa garab istaagnaanaya, waa in aad awood aad u leedahay in aad garab istaagnaatid. awooddaada, lacagtaada, naftaada iyo ducadaada. haddaa waxaas dhan aad awood weysid, bas u duceey. Falastiin waxay idinka baahan tahay duco. fiir, haddaad u fiiriso dadka banaanbaxaya badankooda, kulli ma dhahay, laakiin badankooda waxaa la baxayaa waqti oo salaad soo dhow yahay. banaanbaxayaas inta lagu jiro horta salaadii ayaa kaa tegayso. marka maxaad garab istaagaysaa? ishaag diin maashi u gargaaraysaa. haddaad adiga salaad aadan tukanaynin maxaad ducad maashi? yacni it doesn't make sense. aqliga ma bagalayo. waayo istustus ayaa isdhihi karaan, diid ama yeel. haddaad rabtid in Falastiin aad wax u qabatid, haddaadan awoodin inaad xoogaada saacidaysid, haddaadan awoodin in aad lacag ku saacidaysid, haddaadan awoodin inaad naftaada ku saacidaysid, bas
at least waxa uu awoodi kartaa in aad ku saacidaysid ducada, bas mar walba aad dukanaysid ducada ugu dar. bal waxaa ii sheegtaa waddan islaam ah ilaa hadda, aniga ma ogi laakiin adiga haddaad ogtahay ii sheeg, mar walba ay dukadaan ma u duceeyaan? jawaabtu waa xaggiina. muuqaalkeygana maanta halkan ayaan kusoo xiri doonaa insha allah. intaan ku wada kulmi doono muuqaal kale oo sidan ah, waxaa idinka tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.